بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كيني امتحانها exponential functionka casharkan waa casharkii labaad ee cutubka saddexaad ee fasalka tobnaadka exponentialka qaacidadan baan isticmaali doonaa u fiirso qaacidadan ayaan isticmaali doonaa haddii la dhaho 4 the power of 3 times 4 the power of 5 la dhaho marka sidan la isiiyo waxaan dhihi doonaa bal u fiirso haddaan dhaho iminka 16 the power of 8 ma sax baa isweydii bal adigu su-aashaas ma sax baa micii waa khalad weeyi sidan khalad bay noqonaysaa khalad ayayna noqon doontaa yaa labada hoose hadday isku ekaadaan mid baa laga soo qaataa sarreeyahana waa laisku geeyaa bes tusaalaan siin haddii la dhaho tusaale u fiirso 3 x labada hoosena mid baa laga soo qaataa x to the power 3 times x to the power of 5 isku gee waa 8 labadan hoosena mid ka soo qaado bayska mid ka soo qaado markaas marka maxaan dhihi waa 4 to the power of 8 baan dhahayaa 4 the power of 8 baan isticmaalayaa halkaasi 4 labadan 4 mid baan ka soo qaadanayaa tusaalahan waa isla iyadun laakiin haddii sidan ii tahay waa isku dhifan waa 16 jibaarkiisuna waa hal isku eegyihiin marka mid baan ka soo qaadanayaa jibaarka sida qaacidooyinka aan ku soo aragnay weeji marka taa ugu horeysay waa 4 hal 4 baan ka qaadanayaa xagga 8 kaan qoray waa 4 ya 4 the power of 8 way halka 8 maaha waa 4 ya intan haddii la dhaho waxaan dhahayaa labadan waa isku dhufanayaa waayo sarreeyahan baa isku eg sarreeyaha mid baan ka soo qaadan hooseyana waa isku dhufanayaa waa 56 the power of 3 baan dhahayaa hal baan ka soo qaadanayaa sida qaacidadu ay tahay waad aragteen baan u malaynayaa haye tusaalayaashan u fiirso haye 9 the power of 5 times 6 the power of 5 haye 8 the power of 3 times 8 the power of 5 7 the power of 4 times 3 the power of 4 3 the power of 4 baan dhahayaa markaan sidan la ii siiyo waxaan dhihi midun baan ka soo qaadan labadaas waxaan dhihi waa 5 labadana isku gee waa 11 labadana sarreeyaha isku eg mid baan ka soo qaadan hooseyana baa isku dhufanaya waxaan dhahayaa isku dhufo waa 54 jibaarkana mid ka soo qaado waa 5 baan dhahayaa bes labadana mid baan ka soo qaadan sarreeyana waa isku maxaan dhihi 8 isku gee labadana 13 u gee waa 14 labadan mid iga soo qaad 8 baan dhahayaa the power of 14 isku gee bes haye labadana sarreeyaha mid baan ka soo qaadan hooseeyaha bayskana waa isku dhufanaya sarreeyaha mid baan ka soo qaadanaya isku dhufan labadan waa 21 the power of 4 bes intaan baan dhahayaa waad faataan u malaynaya hadda halkan waa real matters private school insha allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab ayay tusaalayaasheenii galana 8 the power of 4 times 4 the power of 5 haddii sidan ay doonaan waxaad u malin lahayd iskuma ekamaa maadaama inay isku ekayn sarreeyuna iskuma eko hooseeyuna iskuma eko bayskana iskuma eko powerkana iskuma eko masaasaan dhihi lahaa may waa khalad ya sidan is not equal to ima leka weji waa inaan soo yareeyaa qaabkan waan soo yareynayaa waxaan dhahayaa tusaale 4 waxa iga timid baan dhihi 4 waxa iga timid 2 times 2 laba jeer laba la ku dhuftay iyo 4 iga timid marka maxaan dhihi doonaa waa 2 the power of 2 the power of 5 baan dhihi doonaa kan kalena maxaan dhihi doonaa 8 waa 3 jeer oo mid laba ayay iga timid 3 jeer oo mid laba maadaama iga timid waxaan dhihi doonaa 2 the power of 3 2 the power of 3 times 4 baan dhihi doonaa saasay noqon doontaa afartu intaas iga timid waa laba jeer oo mid laba ayaa ila simida 2 the power of 2 equal 4 sideeduna waa 3 jeer oo mid laba la isku dhuftay ayaa ila simida 2 the power of 3 sideed bay ila mid tahay marka maxaan dhihi doonaa intaas waxaan dhihi waa 2 the power of 3 intaa ii xidh the power of 4 baan dhihi doonaa xaggana times dheh intaana ii soo qaad times baan dhahayaa 2 the power of 2 times 5 baan dhahayaa kabacdi sidan qaacidadii aan ku soo aragnay 3 iyo 4 way isku dhacayaan 2 iyo 5 na way isku dhacayaan labadaas way isku dhacayaan maxay noqon 2 the power of 12 times 2 the power of isku dhufa labadana 10
2 the power of 10 baan dhahay mar haddii isku ekaade hooseeyo sarreeyaha isu gee marka labadan mid baan ka soo qaadan labadana waan isu geyn waxaan dhihi waa 2 the power of isu gee 22 ayaan helay waad fahantaan u malaynayaa 22 ayay soo baxday jawaabtu waa intaas waad fahantaan u malaynayaa haddaan aan hubiyo aan macnihii yar hubino u fiirso intaas haddaan dhaho haddaan isticmaalo oon dhaho foorka marka hore aan ku eego 2 the power of 2 aan geliyo 2 the power of 2 waan dhahaya marka 2 the power of 2 haye aan dhaho marka waa 4 koob iyo toban ma aragta waa 4 koob iyo toban bay noqonaysaa kan kalena haddaan soo eego isagana maxaan dhihi waa meesha iga timid sideedu waa 2 the power of 3 ma maxaan dhihi doonaa marka 3 ayaan dhihi doonaa u fiirso intaas ila mid dhihi doonaa xagaa maxaan gelinayaa 22 loos dhigay 3 baan dhahay 22 loos dhigay 3 baan dhihi marka 3 iyo 3 haddaan isla saaro 22 maxay ila tahay intaas ila tahay waayo 8 intaas ila mid tahay weji 3 iyo 3 isla saar marka intani maxay ila tahay 22 waxay ila mid tahay maxayna 22 waad fahantaan u malaynayaa haddii la eegayo waa 2 the power of haddaan dhaho over 3 ba ii soo baxaysaa kana markaan yareeyo saasoo noqonaya intaa waa isla fahnay halkan waa real matters private school insha Allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad u fudud tusaalayaashiina socon 9 the power of 5 22 the power of 4 baan dhahaya ma isku dhafano sidana waan soo yareynaya maxaan dhihi 9 ku waa 3 square waa 3 the power of 3 baan dhahaya 22 kuna maxaan dhihi marka 3 the power of 5 buu noqon ka kalna 3 waan kala bedelay aad ku soo celiya 2 the power of 5 ka kalna 3 the power of 3 times 4 buu noqon isku dhufo waa 3 the power of intayga masax 3 the power of 10 baan dhahaya 5 ku dhuftay kana ku dhufo waa 3 the power of 12 waa isku ekaadeen hooseeyo mid ka soo qaado 22 3 the power of 22 waad fahantaan u malaynaya hadda waa qaab aad iyo aad ugu fudud marka intan haddaan saa dhaho sidan sii dhaho sidan bay la mid tahay waa fahantaan u malaynaya halkan waa real matters private school maxaan helay waa 9 the power of 11 waa anigoo real in leh halkan waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu